waana qiiqii ceelcad sheekadii la baxday qaybteedii hore. jaamac gaab waa oday welise waa xoog waa 65 jir waxaase loo maleeyaa inuu wax dhan ka yar yahay. markii la weydiiyo siday taasi ku dhacdayna wuxuu kaga jawaabaa horta weligay cidna xaasid kuma noqon, marka labaadna rabbi caano geel buu agtayda dhigay. had iyo jeer koofidu basadiisa kama maqnaato, wuxuu ku qariyaa bidaar weyn oo uu jeclaan lahaa intuu subax soo tooso inuu madaxiisa ku arki waayo. waa nin saddexda adduunyo ee ay Soomaalidu dhaqato hodan ka ah, aadna looga yaqaan ceelcad iyo meelo badan oo bartamaha gobolka Mudug ka mid ah. wuxuu dhalay 12 carruur oo wiilal iyo gabdho u kala baran. waa 2 bohood, mid ma aha intooda kalena waa wada qaangaaro, qaar baabaxaas iyo guryo leh. dumarkii ay carruurtaa isu dhaleen markay dhalma daayeen ayuu guur cusub dhexda u xirtay. inkastoo tashigaasi uu isaga qudhiisa muddoba ka guuxayay, waxaa haddana ku sii hambooriyi jiray odaya ay shaxaan oo dhowrkii gu ee u dambeeyey iyagu hablo aad u da'yar wada guursaday. kuwaas baa waxay kula kaftamaan, maxay jaamacow xoolahan faraha badani kuugu filan yihiin haddii aadan carruur ku korsanayn? uur iyo araxtoona haween aan waxba kuugu sidin maxaa ku duldhigay? ma yaradkaad ka masuugaysaa mase waayaabe islaamahaad ka baqaysaa? wax lagu wadaba gubaabadii jaamac way ku duxday. markaas bay ka go'day inuu guursado oo weliba ishii bugtaabaha ku bekaacsatee degaanka oo idil gabadha ugu qadanka iyo quruxda badan uu kala soo baxo. isaguse waa oday oo habeenkii intuu soo gaatamo kolba cidan meel degan hablahooda uma xodxodo tegi karee sidee buu ku ogaan gabadha tilmaantaas lihireeraha ay u joogto? dhalinyaro uu u adeer yahay intuu hoos ula faqay ayuu bari iyo bogax u kala diray. wuxuu kula ballamay gabdhaha degaanka jooga inay uga soo dooraan inan ugub oo bilic iyo anshi wanaag labadaba faceed kaga foortay. wuxuu doonayaa dhallinyaradaasi inay ku soo noqoto iyada oo mid waliba uu kula talinayo heble hebel inuu guursado, markaasna uu isagu ka doorto tii inay madhaafaanka tahay ay la ahaato. muddo dhowr bilood ah haddii kolba gabar loo soo sheegayay oo looga sheekaynayay, ugu dambaystii wuxuu jaamac gaabgowska ku qabtay inan ammaanteeda loo kala bayri waayayoo uu ninka dhalay garanayo. waxay tara kaga dhammaatay Cawrale Axmed Maxamuud inuu doono oo si degdega uu aabbaheed iyo adeeradeed uu ugu gogol fadhiisto. dabadeedna isaga iyo nin ay ilmo adeer ahaayeen ayaa goor subaxa waxay u jarmaadeen reer Axmed Maxamuud oo meel ay u harsan karaan deganaa. galabnimadii reerka ma dhaafsanin, markay ku warrameenna meel aqalada ka yara dursan ayaa goro dugsoon looga asteeyey. fiidhoraadkiibaa wanjooga ah loo loogay. daribtiisii goortay ka dhargeenna dhiire caano geela ayaa laga durduuray. cabbaar haddii xoolaha iyo daaqa laga sheekaystay ayaa la istusay markuu jaamacdantuu u socday uu reeraha u sheegan lahaa in la gaaray. oo maxaa loo gaari waayey? ma cid kale oo inanta laga dooni lahaabaa goobta ka maqan? waa maya. saddexda nin ee uu hor fadhiyaa sow midi aabbaheed ma aha, kan labaadii sow adeerkeed rumaad ma aha, kan saddexaadna barbaarkii walaalkeed ahaa ee kor uga weynaa sow ma aha. allay leeyahaa. markaasuu jaamac wuxuu hoos ka gudniyey ninkii la socday ee ay xigtada ahaayeen si uu isagu hadalka u furo gabadhana uu u weydiiyo. kiina intuu nabiga ku salleeyey ayuu yidhi, waxaanu idinkugu nimid inaan idinla xididno, gabdhihiinna gabar ka mida inaadna siisaan. waxaanu idinka doonaynaa Cawrale Axmed oo aanu u doonayno jaamac gaab oo aad garanaysaan garabkaygana fadhiya. si degdega ayuu Axmed Maxamuudna martida codsigaas uga oggolaaday. taana foolkiisa lagama akhrisanoo mugdi bay ahayd. waxaa laga ogaaday hawraartii uu hadalka ku bilaabay ee ahayd, ninkii gabadhaada ku weydiistay 7 fac buu kuu ammaanay. waxaa xigay yaradkii oo laga heshiiyey 10 halaad iyo qori 10 la oo jaamac gaab uu gabadha ka keeno markaana loo dhiso. waase goorma? markuu rays dhoomaa tala dhoobantaa waa tii la yidhiye. waxaa la isla gartay biyagu markuu eebba cirka ka keeno. habeenkaas haddii 10 cisho laga joogo ayaa si aanay cid kale gabadha u soo hawaysan
wuxuu jaamacadeedkii uu la xidhiiday laba wiil ugu soo dhiibay deeq aan badnaynoo aan yaradka ku tirsanayn soomaaliduna ay gabaati u taqiin. waxay ahayd hal irmaan oo niragteedii wadata si gaarahana uu odaga ugu galladay iyo dhar sodohda iyo cawrari ay ku arratirtaan. hawshaasi intii ay socotay cawraro looma sheegin. waxay ogaatay oo keliya markuu odaygu dharkii gabaatiga ahaa uu hooyadeed ugu sii dhiibayey ee uu ku yidhi u sheeg inantaada in aan jaamac gaab siiyey. maya iyo aabbahay buu iga yahay hadduu rag ka haro ayay ku jawaabtay kolkay hooyadeed uga tibix siisay ninka la siiyey da'da uu joogo iyo inay guga soo socda xaggiisa u wareegi doonto. markuu aabbaheed taas ogaadayna wuxuu ugu yeeray hoos galbeedka aqalka minweyntiisa oo gabadha hooyadeeda. si walba wuxuu ugu dadaalay inuu taladiisa yeelsiiyo. si kastana wuxuu isugu dayey inuu ka dhaadhiciyo in guurka jaamac ay danteedu ku jirto. ha yeeshee waxba ugama naasacaddaan, inna uguma soo loodsamin. wixii murti uu u soo daliishadayna eebba wax ugama dhigin. ugu dambaystii isaga oo raba da'da jaamac inuu wax wanaagsan u tuso ayuu hadalkii ugu soo gebagabeeyey, maandhay weligaa ma maqashay mahmahdii soomaaliyeed ee ahayd ninku dhali karaa ku dhaqi kara. taasna intay ciddi isku jabisay bay kaga jawaabtay oraah dhiiranoo hablihii la da'da ahaa aanay ku dhici karin. waxay tidhi oo sidee buu igu dhaqi karaa, wuuba iga hor dhimanayaa. dabadeedna waxay ku war heshay odagii oo inta dhab u carooday dhowr dharbaaxo oo degdega dhabanka iyo isha bidix kala helay, isaga oo hiif iyo haaraanna ugu daraaya. markay kasii cararaysana waxay maqlaysay isaga oo ku leh bahalku qaad, maalin kastaba nin gayaankeeda oo na soo weydiistay bay nagu ceebaynaysaa. shawciil horuu u qabaayo hadda ka hor bay ku diiday oday soo doonay yarad fara badanna ka bixin lahaa. maxaase xigi doona? dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa inoo joogo. waa inuu toddobaadka soo aadan iyo sheekadan qaybteeda labaad hadduu eebba idmo.